walaaltii wacan la wanaagsan daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo qaayaha ilaga mudalow meel walbo aad joogtaan iyo marxalad walbo aad ilagu daawanaysaan waxaynu hawadeeda ka leelahay waqtigu haydii wanaagsanaado soo dhawaada saaxiibayaal waxaynu idin helnaa markal falaalada Sacdiya Siman oo sheegtay in fankii ay isaga baxday oo ay alla uga toobad keentay fanaanada oo muddo ahba lagu arag masraxyada fanka iyo xafladaha caruuska ayaa sheegtay in ka hor muddo haatan laga joogo 2 bilood ay go'aansatay in fankii ay isaga baxdo oo ay niyadeedii ka go'aansatay inkastoo aysan jeclaysan in bulshadeeda ay la wadaagto كور هبين واحد يكتاع أسكت وأنصدي هذه مدة لو بدني أما بيل يحوار كور إيه مالك إنتني حاسة هاي وحباش الشيء مسكيرة مسوس كيرة داي أكسعدي أنتي ذو هرب أنصدي ناس كده ينا ملك هيسي ما نتشعلين يا ما دمتي حتى بس مركز أرجمه ويدهان سعدي فنان دي هذا كله عارف نعرف فنك وش كده يا فنان ليش Sacdiya Siman oo bulshada badi ay aad u jeclaysan jireen dhageysiga heesaheedii dareenka xambaarsanaa ayaa markal dib ugu qaamameynaysa muddadii ay fanka ku soo qaadatay iyo tirada kaalimaha suugaaleed oo ay doobtay iyada oo dareemaysa in wixii muddadaasi ay soo waday ay ahaayeen wax xul oo aysan mudleen waqti iyo juhdi in la geliyo qofkii geliyaal uu yahay mid qasaaray adduun iyo aakhir iltaba ما دمتي حتى بس مركز أرجمه ويدهان سعدي فنان دي هذا كله عارف نعرف فنك وش كده يا فنان ليش ويا دمتي هاي بدنا كيف تصيب كاتيه هاللي جوجيو balse qaaliladan ayaa sheegtay in iyaduna ay ku dhiirigelisay Sacdiyo in ay shaaciso ka bixitaankeedii fanka oo ay markaa tusilaysay faa'iidada ama muhiimadda ay arrintaasi u leedahay mid ay kuugu fiican tahay inaad fankaaga aad shaacisay inaad ka baxday midkay kuugu fiican tahay waxa waaye dadkiisaaga dhageysanayo maxaan ku radaa weli ku dhageysto in aad u sheegtay inay kaa dhaafaan oo adigana aad u sheegtay inaad fanka ka baxday ilaahay waxa waaye adiga ilaahay waas ogtihiin laakiin weli waxa kuu sii socdo waxyaabahaagii oo weliba dadku inta wanaagsan haddii loo sheegay iska dhaafayaan heesahaaga inay dhageystaan ama ay daawadaan Sacdiya Siman oo qadka taleefanka kaga qaybgalaysa muuqaal live ah oo qaaliladan ay barteeda YouTube-ka ka waday ayaa waxay shaacisay in fankii ay uga baxday alla dartii qaaliladan ayaa iyadu la sheegtay Sacdiya Siman oo hore go'aalkaasi u gaartay ay iyadu sabab u ahayd inay bulshada la wadaagto go'aankeeda iyada oo xustay in tali ay ka dhigan tahay ilaa heesaheedii dib dambe loo dhageysan qofkii heesi jiray ee waxa sameey jiray xumaan inaadan dib aad u daawan adiga xitaa kuma fiicno yaa ku yiri adiga way ku fiican tahay heesta qofna kuma reey way ku fiican tahay qofka qalbiga wanaagsan oo kaliya ayaa dareemi kara muhiimadda ay Sacdiya Siman u leedahay ilaa la dhageysan heesaheedii balse waxay mar kale taageerayaasheeda la wadaagaysaa oo ay cod dheer uga dalbanaysaa in aan la dhageysan heesaheedii oo ay dadku iska masaxaan maadaama oo tiri hadii aad ku sheegto heesahaaga la iska deyniyaa YouTube-da way ka saarayaan markaas laajigeedan waa ku go'aansadeen maxay heeteen aan sheego inkastoo aan jeclahay umada laakiin oo soo fariisto laakiin waa iska dareemi kartaa xaaladahaaga yes xaaladaha ana iska yar culus umada xalay isoo duceeya u saayidweeyo insha Allah marka waa dambiga igu badnaa kasta sayb kaatee haliga joojiyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa isa soo tariyay falaaliinta alla uu qayrkiisii waafajiyey ee isaga baxaya fanka iyaga oo bulshada la wadaagayay in ay alla uga toobad keeneen fankii iyo xumaaltii ay muddo ku soo dhex jireen balse taa cagsigeeda waxaa jira oo aan shaki ku jirin in iyaguna ay jiraan fanaaniin cusub oo fanka ku soo biirayay balse aan ogeyn dhibaatada iyo carada alle ee uga sugan tallaabadaasi ay qaadeen fadlan daawade haddii aad lala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waxaynu kaa codsanaynaa inaad laagi loo saarto muuqaalka oo aad saaxiibada u sii sheergarayso si uu qaarka u faafo mahadsanid